السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دhowaada guys kale waanu Abdirsaaq. I hope inaad fiican tihiin. Casharkan wuxuu noqonayaa casharkii labaad oo aga hadlayno basic forex-ka. Casharkii koowaad waxaan uga soo hadalnay waa maxay forex iyo sidoo kale suuqa yaa sameeya iyo saameynta suuqa yaa ku leh. Kana wuxuu noqon doonaa casharkii labaad oo asagana uga hadlayno maadaama aan dhahna waxba sarifnaa lacagaha aan sarifin maxay yihiin iyo waxaas oo dhan ayaa uga hadlaynaa insha Allah. Okay, casharkeena ciwaankiisa si meesha ka aragtaan waxa waaye lacagaha ugu waaweyn aan sarifno marka. Waa maxay lacagaha ugu waaweyn ee aan sarifno? Okay, lacagaha ugu waaweyn marka waxa ugu horeeya waa lacagta dollarka. Okay, waxa ugu horeeya waa lacagta dollarka oo ah suuqa waxay ka tahay 85% wax suuqa ka tahay lacagta ugu weyn. Okay, sidoo kale lacagta euro ku xigta oo aydan 39 ah. sidoo kale waxa ku xigta lacagta GBY oo yenka ah oo Japanka ah. sidoo kale aydan waxa ku xigta lacagta oo poundka ku xigta oo UK. sidoo kale waxa ku xigta Australia CHF-ta iyo sidoo kale lacagta Canadianka. Okay, inta ka soo harta marka inta ka soo hartay boqolkiiba waxa ka yihiin 2.5% suuqa ka yihiin. Okay, si inta ka muuqata. Okay, wadamada suuq dhaqaaladu marka uu kala badan yahay oo una kala fiican yahay ay wadamadaas marka lacagooda u kala wanaagsan yihiin. Si hadda waxay ka dhigan tahay hadda lacagta dollarka waa lacagta ugu wanaagsan ee aan isku sarrifno maadaama 85 ay tahay boqolkiiba. Hadda mar aan dib ugu laabano marka maadaama aan lacagaas u kala awood badan yihiin sida u kala fiican yihiin ay macnaa u kala fiican yihiin marka tii meesha ka muuqata. lacagta ugu sareysa ugu fiican waa 85 dollar ah, eurada 39 ah, yenkii oo 19 GBP oo 13 iyo AUD 8 ah iyo CHFT iyo CAD oo 5 iyo 6 ah. Okay, inta ka soo harta marka waa 2.5. lacagaha dambe oo arki doonto sida NZD-da iyo lacag kale aan gaal u tagi doono sidoo wax dhan suuq waxay ka yihiin 2.5 ka yihiin. Okay, marka waxa loo qeybiyaa marka lacagaha waxa loo qeybiyaa marka saddex qeyb lacagaha u qaybinaa. qaybta koowaad oo ah major currency iyo sidoo kale qaybta labaad oo ah cross pairs iyo sidoo kale exotic wallet oo ayagana aan dib u tagay miska falaqayntiisa. Okay, erayga pairs waxa waa marka waa lacagahan oo sida dollarka waxa nooca isku dhahaa pairs la isku dhahaa. Okay, aan ku bilowna marka lacagta ugu horeysa ah major waxa la dhahaa marka lacag kasto oo la socoto lacagta dollar. lacag kasto ay la socoto lacagta dollarka sida USD lacag kasto ay raacdo ama gadaal ka raacdo ama hore ka raacde waxa loo magacaabaa major currency. waa lacagaha ugu awoodda badan suuqa sababtoo maadaama aan 85 boqolkiiba suuq waxa ugu fiican ugu awood badan dollarka aan dhahnay. lacag kasto ay la socoto dollarka ama ha ka dambeysay inta ka dambeysay ama ha ugu horeysa aan ka wadaaye ama ha ugu dambeysay maxay tahay waa lacagta waxay ka mid tahay major currency ka mid tahay. Okay, tan ku xigta waa cross pairs oo ah lacag kasto aysan ku jirin marka lacagta dollarka aysan ku jirin. maxaa ka soo haraya marka GBP yenka ah, GBY yenka ah iyo GBP oo lacagta oo Ingiriiska ah iyo sidoo kale lacagta Europe. intaas maxaa isku magacaaba cross pairs la isku magacaaba. cross pairs maxaa lagu magacaaba marka labadan lagu magacaaba. midda koowaad ah lacag kasto oo dollar ku jirin lacag kasto israaco oo dollar ku jirin waxa la dhahaa cross pairs la dhahaa. sidoo kalena lacagahaas waa lacagee marka waa lacagtii Japan waa lacagtii GBP-da iyo sidoo kale lacagtii Europe. marka maxaa lagu magacaabaa intaas waxa lagu magacaabaa ayagana cross pairs si inta ka muuqata. euro iyo GBP waa israacay waa lacagtii dollarka lacagta waxa ka wada eurada iyo sidoo kale lacagtii yenka israaceen. Okay, waxay ka dhigan tahay meesha inta dollar ku jirin ka dhigan tahay Soomaa waxa lagu magacaabaya cross pairs lagu magacaabaya. sidoo kale qaybta hoose taad kalo marka waxa israacay lacagtii poundka iyo waxa israacay iyo lacagtii Australia israacay. sidoo kale maxaa lagu magacaabayna waxa uu magacaabayna ayagana cross pairs lagu magacaabaya. Okay, aan socono marka sidoo kale exotic wallet oo ah jira kuwan maxaa waaye kuwan waa lacagaha dollarka la socdo oo kuwa soo kabcaya waa kuwa soo kabcaya dollarka la socdo. Okay, sida lacagta South Africa oo kale oo lagu magacaabo SAR iyo sidoo kale lacagta Russia, India, Singapore, Turkey lacaga badan jiraan oo soo kabcaya oo dollarka lagu daray markaas. Okay, lacag kasto dollarka la socdo oo wadamada soo kabcaya sida hadda afartan wadan tusaale u soo qaara wadamada kale oo dhan oo lacagta soo kabcayso waxa lagu magacaabaa exotic lagu magacaabaa. sidoo kale waa lacagaha wadamadooda soo koraya marka. Okay, afarta suuq marka ugu weyn adduunka marka afarta suuq ugu weyn maadaama aan wax sarifno afarta suuq ugu weyn waa lacagahe waa suuqahe. mid waa Sydney lacag suuq Australia iyo NZD-da ah iyo sidoo kale Tokyo oo Japan ah iyo London suuqii la dhan si GBP euro CHF ah iyo New York oo ah USA iyo Canada ah. intaana waxaa waaye waa calaamadii meeshan ka muuqato waa calaamadii iyo wixii laga soo gaabiyey. sidoo kale CAD maxaa laga soo gaabiyey CAD dollar Mexico NZD-da kale waatana waa New Zealand US dollar waxaas dhan Turkey waxa dhan ku jiraan Sweden ku jirto Japan waatana ku jirto JPY Japanese yen la marka eraas yen hada aragtoo kale iyo JPY waxa dhan hada aragtay maxaa waaye waa lacagta yenka oo waxa waaye oo Japan waa marka kuwan maxaa waaye waa afarta suuq ee ugu weyn marka caalamka waa maadaama aan wax sarifno afartan suuq
u fiirsan doonaa kan ku furan yahay kan ku furan yahay kan ku furan yahay waa gaari doonaa xilliyada afartooda furan yihiin iyo xilliyada ay xiran yihiin insha allah sidoo kale google ku qori kartaa oo wax ka raadin kartaa waxaas dhan ka raadin kartaa okay marka goormee lacagta aan sarrifnaa marka maadaama aan dhahno waxaan u sarrif laanahay maadaama goormee wax sarrifnaa marka saddexdan eray waa saddex eray isku mid ah haddaa meesha aad ku aragto buy iyo meesha aad ku aragto long iyo meesha aad ku aragto bullish macnaheedu maxaa waaye waa isku wax waa insha allah qof hadduu ku dhaho kale suuqan long waaye maanta waxay ka dhigantaa suuqan buy waaye qof hadduu ku dhaho suuqan bullish waaye ama meelaha ku aragto bullish waaye waxay ka dhigantaa suuqan buy waaye marka laakiin erayga ugu badan la isticmaalo maxaa waaye erayga ugu badan la isticmaalo waa erayga buy marka okay laakiin labadan kale haddaa eraytid ha ku wareerin isku eray isku macno waa okay waxaa dhahnaa marka buy markii lacagtaas ay joogto hee meel hoose oo aan falaqaynteeda noo sheegayso in lacagtaas qiimaheedu uu kor usoo kacayo okay lacagtan buy baa dhahnaa sida hadda casharkii horena way ku jirtay oo koowaad lacagtan maxaa dhahnaa buy baa dhahnaa okay goormee buy dhahnaa ama longa dhahnaa ama bullisha dhahnaa markii lacagtan meel hoose ay joogto oo intaan falaqeyna lacagtan oo khibradeena iyo falaqaynteena iyo waxaan baran intaan ku falaqayno kadib lacagta ay noo sheegto lacagtaas meel hoose joogtaaye lacagtan inay kor aadayso meel fiican ay noo tegayso waxaa dhahnaa markaas buy aa dhahnaa ama longa dhahnaa ama bullisha dhahnaa okay kan ku xiga waxa waaye waa seel goormee lacagtan marka ayadan seel dhahnaa marka goormee lacagtan ayadan seel dhahnaa waxa ayadan seel dhahnaa markii lacagta ay joogto marka meel kore oo ay falaqaynteeda noo sheegayso in lacagtaas qiimaheedu hoos u dhici doono marka sidoo kale erayga seel iyo erayga short iyo bearish ay wax maxaa waaye waa isku micno waa marka ku wareerin erayga seel hadda aragtid iyo erayga short iyo erayga bearish hadda aragtid waa isku mid waaye laakiin erayga u badan la isticmaalo waa erayga seel marka okay marka goormee wax seel garaynaa marka waxaan wax seel garaynaa markii lacagtan ay joogto marka meel sare sida meel sare sidaan ay joogto aan filayno ama falaqaynteena suuqi intee wixii aan soo barano ku falaqayno lacagtaas ay noo sheegayso marka lacagtaas inay tegayso meel hoose markaas waxaan dhahnaa waa seel dhahnaa si ay uga faa'iidayso marka meesha u soconno falaqaynta meesha noo sheegayso iyo meesha suuqa ka gelayno inta u dhaxaysa marka si ay uga faa'iidaysano maxaa samaynaa lacagta waxaan dhahnaa seel marka yaa noo fududeynaya marka waxyaalaha noo fududeynaya inaan lacagtan sarrifno maadaama anu gurigeena iska joognaa internetkaas iska isticmaalnaa yaa noo fududeynaya yaa lacagtan hagee lacagtan ka helina marka waa u tegi doonaa waxa lacagtan noo fududeynaya waxa la dhaho broker oo dalaal oo internet ah dalaal qofa ma ahan waa dalaal internet ah oo dad ay leeyihiin oo qaab online lagu gelayo marka ayagaa kuu fududeynaya kuwaas maxay haystaan marka waxay haystaan lacagii hadda aan soo marro dhan adduunka isku haystaan marka waddankasi lacagtiisa soo gateen way haystaan marka adi markaa seel dhahdo ama buy dhahdo ayagaa isku kaa bedelayaan marka marka waxaa noo socda casharo badan noo socda sida sidee wax u faa'iideynaa sidee maxaa la dhahaa biib iyo waxaasoo dhan sidoo kale waxaa noo soo socdaa brokerkan kale ugu muhiimsan asagana oo inta badan dadku isku waafaqsan yihiin sidoo kale meelaha oo xaaraanta iyo xalaalta iyo insha allah meelaha si fiican loogu fahmaya meeshaana ka mid ah sidoo kale arda waxa arkaya community kusoo qoraya waa xaraan iyo xalaal insha allah taasna adaa ka jawaabi doonti waa gormee marka casharada dhammaysid koorsada si fiican u qaadatid casharada ku celcelisid oo niyadaada isticmaashid adaa wax ka jawaabi doontaa waxaan inay xaaraan yihiin ama xalaal yihiin okay casharka labaad insoo noogu eg yahay insha allah marka casharkan labaad maxaa ku qaadanay waxaan ku qaadanay lacagaha beri lacagahaas ku wareerin marka waa inaa lacagahaas xifdisaa USD maxaa la dhahaa waa inaa ogtahay meesha laga soo gaabiyey waxaas oo dhan beri waxaa isticmaali doonaa marka erayar yara isticmaalina sida haddaad gaal ugu laabano waxaa isticmaali doonaa eraya meeshaan ku qoran isticmaali doona marka ma isticmaali doono lacagta ayoo dhammaystiran ma isticmaali maxaa isticmaalinaa USD GB waa inaad hore ka fahantaa marka sidoo kale USD CAD waxay tahay inaad hore ka fahantaa USD CAD maxaa waaye hadda waa lacagtii doolarka iyo lacagtii CAD waaye oo Canadianka waa inaad hore saas dhihi kartaa kale sidoo kale euro USD maxaa waaye waa lacagtii Yurub iyo sidoo kale lacagtii doolarka sidoo kale GBP waxaa waaye lacagtii poundka iyo lacagtii doolarka waaye marka inaad hore ka fahmi kartaa marka eraya hadda la soo gaabiyo kale ha si fiican u akhrisaa sidoo kale inta da imaad sidoo kale lacagaha yeenka kale maxaa waaye waa euro GB waa maxaa waaye waa lacagtii euro iyo lacagtii GB waaye okay markasta waxaan isku sarrifnaa laba lacag isku sarrifnaa oo kala duwan hadda hal lacag ma isku sarrifi karaa I think u malema diin ahaan xataa inay bannaan tahay marka waxaan isku sarrifnaa laba lacag isku sarrifnaa laba lacag ka badan ka yarna isku sarrif karno ka badan isku sarrif karno saddex lacag isku sarrifaa isku xigta possible ma soo ma okay intaas maxaa lagu dhahaa intaas waxa lagu waa lacagihii iyo magacyadooda iyo sidoo kale si u kala sarreeyaan si u kala awood badan yihiin iyo sidoo kale lacagahan goormee seel dhahnaa goormee buy dhahnaa iyo waxaas dhan ba cashar ku qaadanay cashar ku xiga insha allah wax noqon doonaa broker noo noqon doona oo ah cashar muhiim ah sababtoo ah brokerku wuxuu yahay waa wixii naga caawin lahaa marka waxaan inaan sameyno okay casharada ku xiga insha allah mid loo socda marka casharkan insha allah si fiican u dhegeysta si fiican u qorta waa meelaha kuu fududeynaya marka inaad broker si fiican u fahanto suuqana lacag fiican ka samayso insha allah waxaan idinkaga tegayaa marka idinkii cashar